hal shay baa kolley aniga nima yahow aad ii dhibtay. nimanka culummada la yidhaahdo qabiilka ma jeerteen ee hadda aad walaalayaal ka dhalateen, runaatii kolley aad bay igu kacsi inaan idin qabyaaladeenaya moodaya oo ilaahay igu ogyahay. xataa waxaan arkayay garowa gabadh buu iga kufsaday 4 jira oona weligay arago agoona igu tiri ciyaal agoona uu hayay buu gabadh kufsaday. waa arrin deelqaaf oo weyn. markaa nimayo waxaad u sheegtaa aniga inaan hawiye isoo dirin. marka hore kolley guruubyadana laga lahaa dee guruubyadan baa laga lahaa, ninka hawiye unbaa soo diray iyo cid baa soo dirsatee aniga inaan qabaa'il soo dirin u sheega. kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin Soomaali weyn meel kastoo joogtaan soo dhawaada Sharaf Karaamo muuqaalka like saar haddii ay tahay marka kugu horeyso oo soo booqato boggeena YouTube fadlan nagu soo biir oo channelka subscribe saar isla markaana muuqaaladan la wadaag walaalahaaga ama asxaabtaada aad friendska ama saaxiibada kugu dhawtihiin kuwaasi oo lambarada kala haysaan u share garee meel walbana muuqaalkan ku share garee Allah ka ajirsiiyo. haddii aan u guda galno qodobadeena ama pointiga aan rabno inaan dul istaagno haddii la yiraahdo barihi inoo dambeeyay waxaa socotay dhalinyaro aad muxuu ahay u da'yar oo Soomaaliyeed kuwaasi oo soo baxayay oo inta badan siyaabo kala duwan ugu soo biirayay social media kuwaasi oo qaar qabiil ku soo galay qaarna daacinimo ku soo galay oo diin faafin ku soo galay qaarna ciyaar iyo waxyaabo on talent kale gooni ah ku soo galay gaar ahaan haddii tooshka aan si weyn idinkugu ifino Captain Ayub iyo nin la yiraahdo Daaci Mukhtaar ayay isaga toleyd 4 bari la soo dhaafay hadalhayntu isbuucan waxa uu ahaa labada nin oo waliba dagaal aad u weyn oo ba'an oo meel kulul gaaray markaasi uu dhex marayay laakiin ugu dambeyn waxa imaatay xaqiiqada iyo runta meesha taala taasi oo ah in ay isku fahmeen pointigi markaasi ay isku garan laayeen ama ay isla fahmi laayeen. Soomaalidu waa qoomiyadda kaliya ee ka faa'iideysata labada qof mar alla markuu khilaaf yar soo dhex galo ama ay wax yar isku doomaraan in ay boonbooniyaan intooda badan kuwaasi oo ka faa'iideysta isku dirka iyo kala geynta kala fogeynta labadaasi qof oo culays iyo nacab aad u weyn dhexdhiga labada qof taasi oo diiniyan aan haboonayn oo ah wax dhaqankeena iyo diinteena midna aan ku haboonayn ama aad uga fog. haddii si kale aan u raahno Captain Ayub waxa bariyihii inoo dambeeyay uu saarnaa ama uu aad iyo aad markaas iyada ah oraah waaweyn uu ugu soo muxuu ahay hanjabayay Daaci Mukhtaar oo ah nin dhalinyaro ah waxa laga xiray account-kii uu ku lahaa barta TikTok-ga maadaama uu ahaa sheekhan da'da yar mid fidinaya diinta isla markaana waxyaabaha dhalinyaradu ay ku xun yihiin soo bandhiga ugana diga dabcan mar alla markay isqoraansadeen waxa dhacday in hawada laga saaray Daaci Mukhtaar channelkii ama aan idhaahnay account-kii uu ku lahaa bartiisa TikTok kadib wuxuu samaystay account kale laakiin dagaalkii maadaama uusan qaboobin wali uu sii socday waxa dhacday hadana mar labaad in si muxuu ahay lama filaana hawada looga saaray Daaci Mukhtaar live ayaa hal mar isla soo koreen halkan idin muuqata ayay marka iyada ana waxyaabihii loo kala sheekeynayay iyo waxyaabihii madmadow ah dhexdooda ku jiray lagu soo bandhigay gabi ahaan. Daaci Mukhtaar waxa uu gaalaysiiyay Captain Ayub taasi oo gabi ahaanba uu diinta kaga saaray laakiin ma haboona mana wanaagsana kumana taageersanin in qof tawxiid kula hor fadhiya aad tiraahdo waa gaal mushriga ilaa aad ku aragto qowliyan iyo ficliyan wax markaas iyada diinta uu uga baxay diinta oo laga baxana Ilaahay baan ka magan galnay waa meesha ugu dambaysa ee xayaatada qofka muslimka muxuu ahay uu dabcan tigidka looga jaro laakiin haddii qadaf uu geystay waxa leeyahay toobadkeen haddii zina ka dhacay waxa leeyahay toobadkeen haddii gacan ku dhiigla noqdo waxa leeyahay toobadkeen ama diya bixi yaa la leeyahay laakiin gabi ahaanba haddii qofka iskala soo boodo mushrik gaal weeye markuu wax yar ku dhacaba dambi ah waxa noqonaysa ummadda habeen maalin dambi bay ka dhacda yaa ka dhaca muuminiinta waxa noqonaysa marka wax muumin inay soo jirin oo dadku wada gaala yihiin waayo habeen maalin adigu dambi baa ka dhaca qadaf baa ka dhaca zina ka dhacda dib baa ka dhaca muxuu ahaayay haddii wax walbaba aad tigid ku jirto tiraahdo waa gaal mushriga waxa noqonaysa laftirkaaga baad gaalnimada waxaad ka noqonaysaa qayb oo laftirkaaga gaalnimada kugu soo noqonaysa marka saas darteed waxaanan gabi ahaanba taageerinin erayga ahaa wuu gaaloobay Captain Ayub laakiin sababta uu ku gaalaysiiyay ay hadana meesha taala taasi oo u baahan in dadka laga jaahil bixiyo dadku intooda badan ma aha Soomaalidu dad jaahiliina waa dad diinta yaqaan oo wax bartay waayo ma jiro cunug intuu dhashay hooyadii aabihii sidii u dhaleen dugsi aan la geynin oo quraanka baranin haba yaraatee jisbaha ka bartee meel uu ku tagaba xadiis iyo diinna aan u bilawneen ma jiro oo Soomaaliya hadduu jirana kol labadii reer wuxuu ka dhashay ama markaas iyada waalid waxa dhalay aan isleenahay kuwaasi diinta maxay kala joogeen mise maxay ahaayeen
laakiin inta badan Soomaalidu diinta ayaa lagu barbaariyaa canuga inta waxbarasho kale loo qaadin inta meel kale la geenin waxbarashada ayaa lagu barbaariyaa waxbarashada ayaa muxuu ahay dabcan meel laga geeyaa almuhim waxaan ula dan leenahay eraygii ahaa daaci mukhtaar uu ku gaaleysiyey kabtan ayuub ayaa waxuu ahaa in uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ku abtirsadaa nabiga oo lagu abtirsado ma ahan gaalimo ma ahan xitaa dembi kabaa'iroo weyn waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu leeyahay qowlka laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah ayaa waxa uu mideeyaa walaalna ka dhigaa muslimiinta gebi ahaantooda maadaama sidaa ay tahay haddii diiniyan iyo nisbiyan diiniyan wuu ugu abtirsan karaa oo diinta nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaana soo gaarsiiyey nabi noogama dambeynin noogamana horreynin marka maadaama isagu uuna soo gaarsiiyey diin ahaan waana ugu abtirsan karaa oo waxaan dhihi karaa wax walba oo camal ahoo wanaagsan oo jidka suuban lagu aado asaga ayaan kaga dayanaya saas darteed maadaama aan kaga dayanaya wax walba oo uu yahay tusaale qofka laga qaatay qofka ugu wanaagsanaa diin ahaan waan ku abtirsan karaa waayo diinta ayaa wax walba waxay uga muhiimsan tahay wax walba oo agtaada muhiimka diinta ayaa ka muhiimsan tuwa taas midda kale abtir ahaanna haddii Soomaalida wad aragtay nin walba wuxuu dhahaa waxaan ka soo jeedaa dabcan Carab baan ka soo jeedaa halkaasaan galaa qaar baa Ali ibn Abi Talib ku abtirsada qaar baa Umar ibn Khattab ku abtirsada tusaale dhow hadaan ku soo qaado kale beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed waa beesha Ashraaf waxa la yiraahdaa waa awlaadii muxuu ahaa hadda alla ku roon yahay Faadima binti Rasuulillah Xasan iyo Xuseen bay far ku leeyihiin halkaas ka soo jeedaan baa la yiraahdaa magaalima hadii lagu abtirsado waaba meesha ugu wanaagsan ee lagu abtirsado waayo nasabad la sheegto waxa ugu wanaagsan nasabada diinta iyo sharafta leh aduu maanta marka abtirsanayso waxaad jeceshahay in nasabadaadu diin iyo magacyo diimeed iyo magacyo wanaagsan aad ku abtirsato oo qof ka diin soo lahaa aad tahay marka almuhim maxaan ula jeednaa in lagu abtirsado nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aha haba yaraatee wax dembi ah ma aha culimada oo dhan baa isku raacsan laakiin haddii muxuu ahaayey abtirkiisii nabiga la khaldo oo waadix loo khaldo weliba on jaahilnimo ahayn oo si kaca loo khaldo haddii abtirkiisii la jaa'ifeeyo haddii muxuu ahaayey isirkiisi wax loo dhimo taas iyada waxaa la dhihi karaa su-aal baa ka imaanaysa inkastoo weli culimadu ay isugu khilaafsan yihin oo laleeyahay qofkaasi wuxuu ula dan lahaa baa la weydiin haddii kaska ahayd markaasi waxaa la leeyahay haddiiba nabiga calayhi salaatu wasalaam cirdigiisu wax ka sheegay qofkan waa qof gaala haddiisan ula qasdino jaahil u yahan waxaa leeyahay toobadkeen sidaas ma ahay sidaas ay ahayd qaado المهم waxaan ula jeednaa marka daaci mukhtaar aad baa ugu fudaaday arrinkaasi oo uu ku gaalaysiiyey kabtan ayuub kolaba annagu maana maqal meel uu ku yidhi nabiyullaahi maxamed oo ugu qadfay ama diinta uu kaga baxay kabtan ayuub ugu dambeyn warka hore war soo dhaafiye bal codka ugu dambeyn sii dhegeysto joojina buunbuuninta aad buunbuuninayso haddii hawsha qabowdo muuqaalkanna meel fiican gee oo laygta ugu dada heshiiska iyo weliba codadkii meeshay ku dambeeyeen khilaafaadka isaga ahaa baa idin kala dhexbaxaynaaye muuqaalka like saar nagula soo biir mahadsanid waanan qabaa'il anigu aanan ku shaqo lahayn xaggaygana cafis iyo masaamax ay ka yihiin horena gob ay ugu ahayn haddana gob ay ka yihiin marka khayr baan idin rajaynaya insha allah assalaamu calaykum waraxmatullah mukhtaar intaada bixin haddii nimankaa fredisa tahay ama aan soo follow garayno lambarka hooyo isoo dir adiga kugu aamini mayo anaa dhahaya cafi gobonimo raganimo waxa weeye war ninka la yiraahdo mid kalena waa ku darayaa dhalinyarada meelaha wax ku qordha iyo dhalinyarada haddii alla ku rooya miidiyaha isticmaasha de inta badan dadan lasoo garan mayo laakiin aniga iyo mukhtaar nimanyow dadku waa kala fakar duwaan karnaa laba qabiil ma kala nihin hal jees baan wada nahay meeshaan ka wada nimaydna waa ogtihiin isku xaafad baan waa nin reer buu hoodlaa sida lai sheegay anigoo nin reer gaalkacyoodaan marka u malayn mayo inaan haddii alla ku rooya qabiil kala leenahay daaci mukhtaar ninka qofkii ama u nasteexaynaya ama markaas wuxuu asagu ka ficil qaadanaya yaan qabiil lagu eedayn yaan bahalkii la dhihin laakiin qofka shidiisa la dhaho wareerow waxa waa ku khaldan tahay haddana cafiya masaaha wax kasta waa isniri odaga ha laga haro aad iyo aad ba inaad allah idin sharfo ninka la yiraahdo daaci mukhtaar